kulan ay yeesheen wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen iyo wasiirka beeraha Itoobiya Mudane Cumar Xuseen laguna qabtay magaalada Addis Ababa taariikhdu markay ahayd 28 Maaj ee sanadkan 2019 ayay ku kala saxiixdeen heshiis is-afgarad oo ku saabsan iskaashiga iyo wada shaqeynta arrimaha caafimaadka xoolaha, suuqgeynta iyo horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ah ee ku nool labada dal. kulanka labada wasiir waxaa ka horeeyay shir muddo 3 maalmood ah uga socday magaalada Addis Ababa khubaro ka kala socday labada wasaaradood ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya loogana wada hadlayay sidii labada dowladood isaga kaashan lahaayeen arrimaha caafimaadka xoolaha, ka hortagga cudurrada xoolaha ku dhaca iyo diyaarinta heshiiska is-afgarad kaas oo ay si wadajir ah u soo qaban qaabiyeen urur goboleedka IGAD, hay'adda u qaabilsan dhinaca horumarinta xoolaha iyo reer guuraaga iyo hay'adda caalamiga ah ee USAID oo dowladda Mareykanka u qaabilsan maalgashiga horumarinta dhaqaalaha adduunka. waxaana lagu gunaanaday saxiixa heshiiska labada wasiir. ugu dambeyn warmurtiyeed ee soo saareen labada wasiir waxay ku sheegeen in iyada oo dib loo eegayo hab siyaasadeedkii caafimaadka xoolaha oo ay wada siixdeen wasiirada xanaanada xoolaha ee wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD sanadkii 2009 kaas oo ku saabsanaa xal u helidda dhibaatooyinka ka jira ganacsiga xoolaha iyo u nuglaanshaha caafimaadka iyo suuqgeynta xoolaha ee gobolka ay isla qaateen in cudurrada ku dhaca xoolaha iyo awoodiyada ganacsatada xoolaha ay yihiin caqabadaha halista ah ee hortaagan ganacsiga xoolaha abuurana nuglaanshaha. waxaana la go'aansaday in si wadajir ah gobolka oo midaysan xal loogu raadiyo wax ka qabashada arrimahaasi taagan. wasiiradu waxay aqoonsadeen baahida loo qabay in si xoog leh loogu howlgalo sidii loo hagaajin lahaa arrimaha caafimaadka xoolaha iyo fayaqabkooda si loo fududeeyo badqabka iyo kordhinta ganacsiga dhoofka xoolaha iyo dhiirigelinta nolosha bulshada. wasiiradu waxay qireen caqabadaha ay wajahaan bulshada xoolo dhaqatada ah, ganacsatada xoolaha iyo kuwa bixiya shaqada caafimaadka xoolaha ee labada dhinac ee bulshada ku nool xuduudda labada wadan, isla markaana si qoto dheer hoos uga eegayaan sidii ay labada dalba uga go'an tahay xal u helidda caqabadahaas loona horumarin lahaa ganacsiga dhoofka xoolaha. ugu dambeyn wasiirada xanaanada xoolaha ee dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waxay go'aamiyeen in iyaga oo kaashanaya IGAD ay diyaar u yihiin in deeq-bixiyaasha ay maalgelin iyo dhaqaale uga raadiyaan shaqooyinka kala duwan ee ku qeexan heshiiska is-afgaradka ah ee labada dal iyo qabyo qoraalka habdhaqangelinta ee loogu talagalay sidii loo fulin lahaa qodobada heshiiska kaas oo loo aseeyay ansixintiisa 15 Abriil ee sanadka 2019. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.